new song is coming. waxa ay soo gaaray fiidiyoyaal fara badan ee soo duubeen dhalin Soomaaliyeed kuwaas oo macnaha isu sheegayo inay fankii horumar ay gaarsiinayaan. haddii aan daawaday oo fiidiyooshan aan fiiriyay oo aan arkay waxa ay soo baxday fankii Soomaaliyeed sharafkiisa sumcadiisa in lagu ciyaaro meel looga dhacay. waan ka codsanaynaa inaad noo saarto muuqaalka subscribe iyo weliba channelkana aad noo like garaysay muuqaalkaba war degdega maanta halkan waxaanu ku soo bandhigaynaa muuqaalo yaab badan oo baraha bulshada qabsaday فنان عانه وقصو بحي مقالة مقدشو لغو مقعابو طاهر سعودال أما ينو نقانا السعودال ياري هذا فنان كان عان كايه كنك السعودال لما قاب بحي أيها وحو برها برشد اللوغو هذا الهجا مقالة آدو كالدوين ما أنت برنامج كينا وحين ستة وصوفنا قيانا معشي سوجين كدو غاني آدو غين فنان كان عان كايه كسو بحي مقدشو إيجا صبابتها ku kaliftay ee ka yeersay inuu yiraahdo fanka Soomaaliyeed waxaan ku qaban doonaa gacan bira maadaama oo sidii balli lagu dabaaranayo fanka loo soo galayo ku bashana sidii farantiga waa ku cabida sidii cawanta ku bashana sidii farantiga waa ku cabida sidii cawanta haddaba fanaankan caanka ah ayaa show u xalay qabtay waxaa ka soo qayb galay dadyaw aad u fara badan dhalinyaro aad u fara badan dad badan oo taageerayaashiisa ka mid ah fanaan dhalinyarada aadka u faraha badan ee fanka Soomaaliyeed aadka u taageerta oo weliba si gaar ahaaneedna isaga u taageera oo ka soo qayb galay showgii xalay ee lagu qabanayay meel ka mid ah magaalada Muqdisho iyo weliba dad aad u fara badan oo halkaa ahaa kuwa muuqaalo ka duubanayay iyo kuwa xayeysiis ka duubanayayba haddaba fanaankan caanka ah ee Soodaal ayaa waxa uu 2020 bishii koowaad ku soo biiray barta TikTok uu ku faafin jiray muuqaalo madadaalo ah oo halkaa ku helay ama uu ku hantay kumanaan kun oo dadyow kala duwan oo aad u xiiseyn jiray hadalka wiilkan yar ee mashaashileystaha ee talentiga leh haddaba sidaas oo ay tahay wuxuu soo socdaba wiilkan waxaa la odhan jiray waxa uu aad u xiiseeyaa qaybaha shacayrka iyo filmaanta maadaama uu la odhan jiray dadka qaarkoodna ay ku xaman jireen waa nin dumarku aad u jecel yihiin oo maadaama oo muuqaalkii uu soo dubo maalin walba 10 dumar oo Soomaaliyeed ama 10 hablood oo Soomaaliyeed oo kala duwan ay kula jiraan الله أم بالهان مهمة وأنا أفكر تاي كرتا أغلى الله أم بالهان مهمة وأنا أمد كل حجر كرتا لبسنا ما لبسنا مهمة وأنا وحبوجن تاي أوكي أول سومالك haddaba aakhirataanki waxa uu soo saaray hees la magac baxday TikTok ma ahaybo makhaayadaadan ka dhex qadaynaa waanan halaynaa taasoo ku noqotay baraha bulshada mid caan ka dhigtay oo weliba daafaha dunida aad uga kala dhacday oo fanaaniin badan oo Soomaaliyeed hore u soo jireen heesahooda dhulka gelisay haddaba sidaas oo ay tahay fanaanka Ilka Casaqays oo jawaab degdeg ah ka bixinaya ayaa hees soo saaray uu ku karbaashay wiilka yar isagoo ay heesta midhaheeda qayb ka mid ahayd TikTok ayaa reerihiinu kaaga soo masaajidada walba sida kaaga soo bariyayaan maadaama oo aan anigu soo galay oo aan weli noolahay aan ahay raabarkii weynaa ee Soomaalida haddaba sideen ognahay fanaaniinta badanaa ka soo baxda magaalada Muqdisho maaha fanaanin heese caadi ah soo qaada balse waa fanaaniin runtii Ilaahay talenti siiyay oo raabara sax ah sida fanaanka Sharma Boy Sheesi Boy oo isaguna ah fanaan la hulin la yahay oo weliba hantay qulubta dad badan oo Soomaaliyeed haddaba wiilkan yar ayaa isna soo baxay ugu dambeeyay oo ah fanaan ka soo baxaya magaalada Muqdisho maadaama uu heestii labaad hadda ay dabka soo saaran tahay oo aynu aragnay weliba heestan oo TikTok ku sii faafaysa haddaba Soodaal ayaa heesta hore uu soo qaaday waxa ka falceliyay kumanaan kun oo Soomaaliyeed oo daawadayaal kala duwan iyo weliba qaar ka falceliyay oo faranqeeyayaal badan
waxaynu ognahay inuu durdaba wiilkan ku faafay baraha bulshada oo uu caan ka noqday dadyo badan aan hore u aqoona ay maanta yaqaanaan inuu soo baxay wiilkii heestii la magac baxay makhaayadaadan halayna waanan ka dhaxshaasaa weliba sida furka saliidda ayaan farta ku gashanaa. waa runtii markaas si u eegto ereyada sida laysugu geegeeyey iyo codka oo ah wiil cod dabacsan runtii haddii aynu xaqiiqa dhaba ka hadalno wuu noqon karaa fanaan dhinacna waa ka mashaakilaysta. run ahaantii waxa weeyaan wiilkaa yar ee soo baxay ilaahay uu siiyey hibada ayaa xalay wuxuu ku qabtay magaalada muqdisho show uu ugu magac daray weliba showgan oo noqonaya kiisii ugu horreeyey iyo heestiisii ugu horreysay oo uu ku soo bandhigay oo uu weliba isagu maalgeliyey runtii sidaan warar xaqiiqa ah ku helay. haddaba wiilkan yar ee Soomaaliyeed ayaa waxa uu sidoo baraha bulshada aynu ognahay inuu ku faafay ayuu wuxuu sheegay inuu leeyahay waxa aan gacan bira ku qaban doonaa fanka Soomaaliyeed oo halaabay. taasina waxay ka dhigan tahay inuu soo baxay ama aynu odhan karno wiil ay dad badan aad u taageersan yihiin ayaa markaan soo baxay. runtii lama inkiri karo oo waynu ognahay inuu durdaba helay taageerayaal aad u fara badan oo weliba aad u shicraaday. runtii qofka caanku markuu noqdo waa xaqiiqo dhaba waana lagu hoobtaa waana la shicraadaa. bal aynu eegno heeso badan uu soo saaray haddii aynu dib ugu noqonno. runtii heestiisii ugu horreysay uu soo saaro waa heestan tan kale ee ku xigta ee uu siduu sheegay dabka soo saaran waraysiyo uu bixiyey uu ku andacooday inay dadyow badani ay ka xun yihiin fankiisa qaarkood balse runtii wuxuu ballan ku qaaday inuu quluubtooda hantin doono oo ay arki doonaan dadkaasi isagoo shecel ama ay shecel yihiin fanaankan. aniga xaq soorahan TV waan taageeraa wiilkan yar waayo waa wiil yaroo Soomaaliyeed oo ilaahay talentina siiyey qalbi wanaagna aan ku taageeray taasoo keenaysa inuu yahay wiilkii ugu dambeeyay ee fanaanaha soo baxa weliba. haddaba mucjisada yaab kale ee ku duugan ayaa isagoo hadlaya wuxuu yiri ku kalsoonan codkaaga haddii aad hadli karto waad heesi kartaa haddii micnaha uu ka wado qof kasta oo hadli kara ma heesi karo micnaha hadal uu ka wado qof haddii uu yahay qof hadli kara oo weliba mashaakilaysta ah oo midhahana abuuri kara. sida aan warar xaqiiqa ah ku helay heesta uu soo saaray midhaheeda isaga ayaa isu keenay oo iska lahaa oo weliba kharashaadka iyo qaybta maalgelintana ka qayb qaatay. iyo weliba dhalinyaro hablo badan oo Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan oo isagoo qayb badan ka soo qaatay sidii ay ula soo kicin lahaayeen heestan ku baahday baraha bulshada ee dad fara badan ay durdaba aad uga falceliyeen. haddaba waxaan ku leenahay ku soo biir Xaqsoor TV oo weliba subscribe saar si aad u hesho xaqiiqooyin dhab ah oo ku salaysan wararka degdega ah ee aan halkan